وصعبيه تفضل. ما شاء الله inta badan waxaan ka hadalnaa waxyaabaha runtii lagu reebay dhibaatada kama hadalno umana mahad celino dadka wanaagsan oo sida Colonel Abshir oo kale oo runtii geystay xafiday kaydiyay wixii la aruunayay ilaa 1951 oo isugu jira wax alla wixii murti ahayd wax alla wixii heesa ahaa wax alla wixii gabay ahaa wax alla wixii taariikhda Soomaalida qodbooyinkii madaxdii la soo martay wax alla wixii maxaan iraahdaa taariikhda Soomaaliyeed oo idil runtii Abshir waxaan Ilaahay uga baryanaa caafimaad iyo cimri dheer annagana waa inaan xasuusnaano hawshii iyo wuxuu soo qabtay qof walba oo runtii wax geysta wanaag geystana waxa loo baahan yahay mar walba inaan siino abaalkiisa iyo mudnaanshihiisa iyo inaan u mahad celino. Abshir Colonel ma mahadsan tahay walaal ku iloomayno Soomaalida waa ku xasuusan tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambaliyo shaqaalaha idaacadda raadiyo Muqdisho iyo TV ku soo biiray 6 sano ka hor aan leeyahay hambaliyo muddadii aad shaqaynayseen runtii wax badan yaad ku soo biiriseen shacabka Soomaaliyeed dhinac walbaba anigu runtii waxaan oran karaa oo aan ka hadli karaa laba marxaladood uu soo maray raadiyo Muqdisho marxalad oo marxaladii la sheegay oo dadkii ugu horeeyay ay tilmaameen 60kii anigu aan xasuusto intii dambe 70-meeyadii 80-meeyadii oo raadiyo Muqdisho uu ahaa aalada kaliya dadka xiriirisa oo qof walba uu dhageysto oo dadka laga hanuuniyo oo wax laga barto oo wadaniyada iyo midnimada runtii horumarisa ilaa haddana wixii waa yaalaan oo waxa marxaati ah markii aan imid oo la magacaabay oo noqday Prime Ministerka 2010kii 2010kii idaacadda ugu horeysay markaan daaray kulli programyadii aan dhageysan jiray 60-meeyadii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii sidoo uga baxayeen iyo heesihii hore qaraamiga ahaa iyo heesihii wadaniga ahaa marka waxa laakiin intaas ii weheliyay muddadaas hore waxay ahayd muddo wanaagsan oo hadee wadanku nabad ahaa oo dadku qalbi wanaagsanayeen oo dalku uu aad u furnaa laakiin markaan dambe marxalad dambe aan ku soo beegmay waxay marxalad aad iyo aad u adag oo duruufo aad u adag ay ka jireen khaasatan ay haysteen duruufahaas dadkii howlwadeennada ahaa oo idaacadda tafatirayaasha ahaa ama wariyaasha ahaa oo ka soo muuqanaya codkooda ama la dhageysanayay oo runtii qaatay sacrifice qaarkoodna ay dhinteen Allah u naxariisto oo aan hadda u duceynay oo faatixadu marnay qaarkoodna ay dalka ka tageen bacdama ay u adkeysan waayeen dhibka qaar kalena waa idinka oo u dhabar adeegay oo u joogay oo wili hadda u dagaalaya in dalkaani uu nabad uu dib ugu soo noqdo waana ku mahadsantihiin hawshaas marxaladaas marka waxay ahayd marxalad aad iyo aad u adag waxaan xasuustaa dhalinyarada uu hadda sheegay gudoomiyaha waa runtiis idaacadda dhalinyarada waxaan u dhisi jirnay moralka waa la hadli jirnay waa geesinimo gelin jirnay waa ka warqabnay wax alla waxay qabaan oo dhibaato ah waa ka dhageysan jirnay maxaa yeelay waxay ahaayeen aalad loo baahan yahay oo qayb ka ah la dagaalanka xagjirka waliba waxay oran jireen waxaan hadda dadka dhihi karin khawaarij ay oran jireen macnaheedu wuxuu ahaa dagaal afka ah oo ka dhib badan ama ka adag kan xabadda ah maxaa yeelay propagandada waxa la yiraahdaa waa qayb ka mid ah dagaalka waxay si geesinimo ah marka oo dadnimo leh oo farsamo leh ay ula dagaaleen sidii shabaab aysan shacabka nooga qaadan lahayn waxay ku dadaaleen in shacabka
iyo dawladda isku soo dhaweeyaan waa markii ugu horeysay ay shacabka iyo dawladdu ay isla jaan qaadaan oo si wada jira ay ula dagaalaan shabaab ma aha shabaab wixii ka adkaaday xabad kaliya ma ahayn shabaab waxa ka adkaaday shacabka Soomaaliyeed ka adkaaday oo garab istaagay dawladdoodii taasna waxa suuro galiyay dhalinyaradii markaas joogay oo qaarkood ay dhinteen qaarkood ay halkan la joogaan jeeytay oo kale iyo qaarkoodna aan aqaano oo ay dalka ka carareen si geesinimo leh ay ula dagaaleen maxaa yeelay idaacadda shabaabku waxay ahayd idaacad very effective ah markaas hadda ma dhageysto laakiin waagaas waa la socday oo waxaan isku fiirinay quality-ga kuweena iyo kuwooda marka waxaas igu daraa oo xasuustaa inay yiraahdeen anagu sidaan kuma shaqeyn karno maxaa yeelay nafteena khatar ay ku jirtaa waxaan u baahannahay in la sii bistoolooyin haddee nin madaxweyne nin prime minister ah oo bistoolo siinaya dee wax sahla ma ah laakiin waxaan arkay duruufta ay ku jireen inay ahayd mid dhaba marka sidaas gudoomi iyo si ka mid ah yaa keentay xiriirka markaas aan lahayn waxaan rabaa halkan marka aan ka recognize garayo aan aqoonsano wasiirkii markaas joogay oo ahaa faafinta Cabdikariin Jaamac khayr Allah siiyo hawl aad u weyn oo runtii dhiirigelina iyo isna contributionkiisa ka geystay qayb ahaan ka geystay maxaa yeelay wuxuu bilaabay oo aan bilawnay inaan siino inaan dhaqaaleeno wiilashaas waxaan bilawnay inaan u sameeyno miis ay raashin ku cunaan si aysan dibadda u aadin iyo weliba meel ay seexdaan bacdama ay ahaayeen target markaan intaas aan ku guulaysanay oo iyaguna ay hawshaas qabteen raadi muqdisho tiimkii ka shaqeynayay oo aan ku guulaysanay inaan muddo kooban aan shabaabka uga bixino dalka waxaan aragnay inay tahay muhiim inaan ku darno muuqaal oo ahaa Somali National TV oo aan abaabulnay oo ilaa hadda shaqeeyo oo quality-giisu aad iyo aad u fiican yahay taasna iyada laftigeeda credit waxaan ku siinayaa Cabdikariin Jaamac oo aan ka wada shaqeynay bacdama uu ahaa wasiirka markaas joogay waxaa intaas dheer oo annagu dee markii 700-meeyadii iyo 80-meeyadii aan soo korinay qayb ka ahaa abaabulka iyo kicinta dadka howlada waa bari heesahoodii wadaniyada ahaa iyo gabayadii iyo wixii la mid ahaa waxaan raadinay marka in aan raadino kooxda inaan raadino oo aan isku abaabulno oo aan dib u soo celinno oo aan mushaharo bilawno oo aan joogtoono weliba qalb u iibino iyagoo dee markaasi sacboolay ah oo waxba haysan markaasay ahayd markii ay dib u soo noolaadeen kooxdii howlada waa bari iyaguna qayb ka ahaa abaabulka iyo kicinta shacabka markaasi muhiimka noo ahaa inaan shabaabka ka hor keenno maanta marka iyo dardargelinta loo baahan yahay waxaan ku jirnaa dalku wuxuu ku jiraa dagaal markaas xabad waxay ku soo dhacaysay oo aan ka hadlayo meeshaan ay ku soo dhacaysay xabad oo dad badan oo shaqaalaha dawladda ahaa lagu dhaawacayay ama lagu dilayay madaxtooyada dhexdeeda dagaalkii markaas dadkan u geeyay oo dadka waa u muujinay dalku inuu dagaal ku jiro hadda waxaa loo baahan yahay marka inaan xamaasadii soo celinno inaan dardargelinno shaqadii markaas aan shabaab uga adkaanay oo magaaladan dhibka badan oo aad og tihiin house to house lagu dagaalayay inaan soo celinno xamaasadii dadka inaan soo celinno wadaniyadii inaan soo celinno isku xirnaanshihii dawladda iyo shacabka inaan soo celinno hawshaasna waxaa loo baahan yahay inaad brograamyo cusub aad samaysaan brograamyo cusub oo looga sheekeynayo waxay shabaab yihiin sidii waagii aad yeesheen oo kale maxaa yeele markaas waxaan samaynay brograam shabaab waxay yihiin looga hadlaayo iyagu waxay sheeganayeen dee magacyada noo bixiyaan waa taqaanaan annagana waxaan bilownay dadka ka soo fakada inaan brograam u samayno oo aan ka hadalsiino oo ay ka hadlaan dhaqanka shabaabka ay leeyihiin oo dhaqanka ay leeyihiin uusan ahayn dhaqan islaam uusan ahayn
oo xitaa mararka qaarkood dadkii ka soo fakaday noo sheegeen inaysan tukan oo xitaa ay sameeyaan waxyaabo lagu eedeeyo ciidamadeenna bacdamaa ay ahaayeen dad aad iyo aad dhinac walba uga xun dadkiina aan barno marka shabaabku waxay yihiin marka oo diinta ay sheeganayaan aysan ahayn diinta islaamka waxay u taagan yihiin ay tahay dad inay laayaan iyo hanti inay burburiyaan hadda waxaa loo baahan yahay marka barnaamijyada in la soo celiyo oo laga hadlo waxa ay sameeyeen weliba tii hadda ugu dambaysay oo ay naga laayeen 400 dad gaaraya oo aan waxba galabsan 400 dad oo kor u dhaafay inay ku dhaawacmeen iyo tii ka dambaysay oo naasa hablo 2 ay dhibaatada ku geysteen culummada naftigooda door fiican ay ka soo qaateen waagaas haddana waa nala shaqeynayaan culummada waa nala shaqeynayaan in la siiyo برنامج la siiyo oo ay uga hadlaan shabaab in aysan ahayn waxa ay u dagaalayaan diin inaysan ahayn maxay diintu ma ogola qof bini aadan in la dilo ma ogola laakiin inay xalaaleysteen inay laayeen shacabkeena inay laayeen caruurteena inay laayeen gabdhaheennii inay laayeen duqeydeennii inay laayeen culimmadeennii in loo sheego dadka maxaa ku raahdaa dib loo xasuusiyo maalin walba waxay sameeyeen haddii kale waa la iska iloobi wixii dhacay bil ka hor waa la iska iloobi marka waxaa la rabaa dadka in loogu soo celiyo wixii dhacay dadka loogu soo celiyo dadkii dhibaatadu gaartay ilmihii agoonta ahayd laga hadal siiyo waalidiintii ilmahooda ku waayay laga hadal siiyo mar walba dadka loo xasuusiyo maxaa yeelay waa qayb ka mid ah propagandada haddaanan saas loola dagaalin iyagu waqti ma luus garanayaan waqti yar ma khasaaranayaan walaalayaal waxaan leeyahay hawshii aad soo qabateen muddooyinkii aad shaqaynayseen oo duruufaha ku shaqaynayseen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ajri xasan idinka siiyo waxaad u shaqayseen dalkiinnii waxaad u shaqayseen dadkiinnii waxaad u shaqayseen waddankiina aad u shaqayseen haddaad dhimataanna jannadaad gelaysaan haddaad nooshihiinna sharaf iyo xurmo iyo karaamad ku noolaanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم مدير مدحوي